akhlaaqda waxyaalaha dhibaatada ku ee akhlaaq xumada keenaya waxa kamid ah mukhadaraadka qaadka sigaarka waxyaalahaas oo aad dhalinyarada ay u isticmaalaan waxa akhlaaq xumada kamid ah ikhtilaadka faraha badan iyo rag iyo dumarka iyo gabdhaha isku dhex jiraan inta badan macnaha maxaa la jiray isla socdaan akhlaaq xumada kamid tahay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yiraahdaa Ciise Aadan Cabdi Ciise waxyaalaha aan ka wada hadalnay xagga mujtamaca xagga qoyska waxa kamid ah furniinka oo farabatay sababtiisa inay tahay ragii inta badan mas'uuliyadda saarneed xagga qoyska ka saarneed inay dayaceen oo garan waayeen oo qaadka iyo macnaha qaadka intii ku mashquuleen iyo afkoodii macnaha mas'uuliyadda dayacay oo meesha soo dhax ka imaaday saadaradeed macnaha weeyaan qoyskii u burburay xalaas macnaha kamid ah xalaha qoys dhibaatada u keenayo iyo ragii oo garanaynin mas'uuliyadda ka saaran ama aan danaynin mas'uuliyadda xaasaskooda iyo ciyaalkooda ka saarna aan danaynin bismillaahir rahmaanir rahiim maanta anaga oo jamciyadda Dadaab Charity Welfare Association jamciyadda Dadaab liricayl khayriya meeshan waxa isku keenay culimaadudiin iyo aqoonyahan iyo odayaal magaalada Dadaab waxaan uga hadlaynay dhowr qodob saddexda qodob oo kala ah dhibaatooyinka ugu waaweyn oo la dhihi karo waxay soo food saarayaan arrimaha diinta ama way haastaanba qodobka labaad oo ah sidoo kale dhibaatooyinka waaweyn oo bulshada dhinaca qoyska haastaan sidoo kale dhibaatooyinka ugu waaweyn oo bulshada haystaan dhinaca bulshada haysata dhinaca akhlaaqda saddexda qodob aan uga hadlaynay waxa marka aan isla garanay inay dhibaatooyin badan jiraan anagoo doonayna insha Allah ta'ala hadii Ilaahay yiraahdo in aan in badan oo isticmaalna meediyaha hadii idaacad tahay hadii TV tahay sifa aragtida noo soo baxday oo ahayd bulshada mushkilada haysata diinta iyo gaar ahaan dhanka dacwada faafinteeda iyo mushkilada haysata bulshada dhanka qoyska iyo mushkilada haysata bulshada dhanka akhlaaqda inaan sidii loo daaweyn lahaa ama loo maartay cilaajin lahaa ama dadka looga wacyi gelin lahaa inaan isticmaalno meediyaha inaan isku idaarsano arrimo ku saabsan bulshada iyo dhaqanka wanaagsan ee ay nafarayso diinteena arrimaha aan isku soo qaadnay in isku idaarsanay annagoo ay isku keentay ama dalada isku keentay soo gali dhibaatadii labadii qof hooyadii labadii waalid dhaxmari karto kala taga faraha badan akhlaaqda ilmihi tarbiyadoodii ilmihi waxbaristoodii inay la geeyo dugsiyada madrasooyinka iskuulada tarbiyadooda la wanaajiyo oo maxaan ku raahdaa ilmihi si fiican wax loo baro oo la ilaaliyo ilmaha waxa dhacda hadii ay labada qof ay kala tagaan in ilmihi ay dayacmaan xaqii noloshoodii gowsha ay ku saaxan lahaayeen ba dayacmaysa meesha ay bari lahaayeen ba ay weynayaan ay ku rafaadayaan